بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشينا كحرن channel كان إسماعيل عقيلة وسو دوادا مانتا خيسوينكي الله وأن كذا ورمي خيسوينكي قرآنيغا يا الله وأن إذن هلكن إذن كذا سو قدبين جرني مانتا qisada aan idin soo wadno waatee adigu setay jeclaan lahayd in halkan aan idin kugu soo gudbiyo qaybta fariinta inoogu reeb ka hor barnaamijkana subscribe dheh si uu u taageero badan uu u helo channelka sidoo kale ha ka iloowin laagta haddii aad ka heshay haddii aadan ka helin aan like dheh barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo maanta waa khamiis tirsiga taariikhda waxay ku beegan tahay 22 bisha 7 ee July sanada 2022 taas oo waafaqsan 12 bisha Dhulxaj 1442 Hijriya mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena وهجاك أي نقدقلنا قصوين كنا قرآن جاه وحان كسو قادن دونا النبي سليمان ومتك مده النبي يدا الله إلى درير بن إسرائيل أبي سوحوها النبي سيدو كلوحوها بقرد أدون كسومري كوبي أقصى من تبدنا وحاسيكو ينكي صلوها الله قرآن كإيو إنجيل وحا أوه جانسنا مقلوق بدن كيسا سيدا شمبرها جينكا دواشا يددك انت مسلمك وحو دقال بدن لقلي عدوغ إلهي وونك قوليستي نبي سليمان عليه الصلاة والسلام وحو استاجي عيدن كيسا مركاس أيو ودا إندي ishiisu waxay qaban weyday hudhud markaasuu ka raadiyay hudhudkii mise uu arki waayay isagoo mise wuxuu arkay isagoo maqan markaasuu yiri maxaan u arki la'ahay hudhudkii mise kuwa maqan ayuu ka mid yahay nabi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam wuu gartay inuu maqan yahay markaas ayuu amarkiisa bixiyay taasina waa waxyaabaha lagu garto maamulka geesiga ah iyo hogaamiyaha wanaagsan waayo wuxuu baaraa oo uu ka warhayaa cidda uu ka mas'uulka yahay markaas hadduu waayo wuxuu qaataa go'aan ay ku cibro qaataan kuwa kale si aanu mid kale ugu dhiiran falkaasi iska bixidda ah oo kale haddaba go'aankii uu qaatay nabi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa waxa uu markiiba yiri isagoon jeesjeesan oo aanan dhihin miska tegaya yaa wax u dirsaday muxuu igu sheegi waayay waxaan cadaab daran ama waan goorici ama wuxuu ii keenay xujacad waan cadaabi oo ay ku fisraan culimada waxaan ka rifi baalalka ama waxaan ku dari shimbiro kale oo aan ahayn dhigiisa si uu u dareemo diiqad laakiin hadalkiisa waxa uu ku daray ama wuxuu ii keenay xujacad haddii wax cad oo lagu qanco lagu tusiyo ha canaantamin oo ka aqbal qofka markaasi waxaan halkan ka faa'iideynaa in aan go'aan ka qaadano marka ay arini ku soo wajahdo adigoo ilaahayna u tala saaranaya guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa halkaad nagala socotaan waa Ismaaciil Aqila channelka qofka idin soo tabinayana waa Ismaaciil Maxamed Sid Cali inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono daawadayaasheena sharafta badan ee inagu xiran waa Ismaaciil Aqila iyo channelkiisa idin kaga tagaya sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh